السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga magacaygu waa Xamse waxaan rajaynayaa hadduu muuqaalkan ay cajiibin aad like saartaan channelkana subscribe dhaha baleelkana furta si uu mar walba idiin soo gaadho muuqaaladan soo dhignaa maanta waxaynu sharaxaynaa sida loola baxo Sweetcoin lacagtii aad ka shaqaysatay socodka marka hore waxaan tusayaa intaan kala baxay waxaan tegnaa KuCoin-ka exchange-kaasaan dhex galnaa kadib waxaan tusayaa intaan la baxay Sweetcoin kadib waxaan tegayaa wallet-kayga halka ay wallet-ku qoran tahay ayaan tegayaa kadib lacagyo badan kulli waan kala baxay adoo imika dhowr lacagyo waan kala baxay gudaha ayaan ugu gelaynaa wallet-keennii markuu inoo soo shidmo waxaynu arki doonaa insha Allah intii lacagyo waan kala baxay saad halkaa uga jeedaanba waxaan kala baxay lacagyo fara badan bishii sagaalaad 15-keygii sidaan halkaa ku arki doono taariikhda bishii sagaalaad 15-keygii waxaan kala baxay 37.9 Sweetcoin oo maalintii horreysay lacag badan runtii kala baxo maalintii ka horreysay waan tijaabiyay isla maalintaas ahayd 3 baan ku tijaabiyay marka aad u shaqaynaysaa dad bay la wali aaminsan in ayna shaqaynayn oo lacagta la bixi karayn oo la bixi kartaa runtii oo saad baad ku heli kartaa oo waxaad ku heli kartaa dahab iyo adeegyada kaleba saad xaggaas uga jeedaana waxay u jirtaa $3.89 runtii maaha lacag kale waa lacagta Sweetcoin la soo baxay waxaan u geli doonaa main account-keena gudaha u geli doonaa saad halkaa ku aragtaan waxay ku jira 182.33 saad halkaa ku arkaysaan oo u dhiganta $3.91 waxay u dhigantaa $3.91 runtii way shaqaynaysaa waad la bixi kartaa lacagtaada waxaynu bilaabaynaa processka waynu ka soo bixi doonaa habkan waxaynu gudaha u gelinaa Sweetcoin-keena halkaasaynu ka bilaabi doono habka loola baxo lacagta Sweetcoin markaynu gudaha usoo galno waxay noo soo bixi doonaa si noocan oo kale ah sidaad halkaa uga jeedaan ani lacagtii ku jirta waa 408.51 Sweetcoin maaha dollar lacagtani si dadka qaar moodayeen maaha dollar waa Sweetcoin marka Sweetcoin daad ilaa muddan u rulinay ilaa dhowr bilooda 400 baan u gaarsiiyay 8 walow aan wax kala baxay haddana weli kama jirin intaan kala baxay habkan waxaan ku dhufanaa halkaa ay ku qoran tahay download Sweet Wallet app halkaas ayaan ku dhufanaa wuxuu gudaha inoo geyn doonaa Play Store-ka halkaasnu kala soo degi doono appka Sweet Wallet markaynu soo galno Sweet Wallet waxaan ku dhufanaa install halkaa ay ku qoran tahay inuu la soo degi doonaa markuu sidateen ugu soo dego waxaan ku dhufan doonaa open kadib waxaan gudaha u geli doonaa Sweet Wallet kadibna waxaan ka dooran doonaa halkaa ay ku qoran tahay login Sweetcoin halkaas ayaan ku dhufan doonaa markaan halkaa ku dhufan waxaan gudaha inoo geyn doonaa Sweet Wallet kadib waxaan ku soo dhufan doonaa halkaa ay ku qoran tahay login from activity email halkaa markaan ku dhufano wuxuu gudaha inoo geyn doonaa emailkeena kadib waxaan u soo wadi doonaa xaggan dhanka midig aynu dhanka bidix aynu u wadi doonaa waan ka wadaa markaan xaggaa wadno waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay copy email subject line halkaasnu ku raadin doono hadhow markaan emailka dhex galno qaybta search-intaan ku qori doono kadib waxaan ku dhufanaa open your email copy markaan ku dhufan waxaan ku dhufan doonaa open your email kadib wuxuu gudaha inoo geyn doonaa emailkeena kadib qoraalkeena soo koobiyay waxaan ku qori doonaa ama aan paste ku dhihi doonaa qaybta sare ee search-inta aynu paste ku dhihi doonaa kadib waxaynu search-in ayaan tagnaa kadib waxaan halkaas naga soo bixi doonaa qoraalku waa ka sare ani laba jeer bay soo dirin ka sare weeyaan ee taariikhdiisu dambeysay 9 September la soo diray kaas aynu gudaha u sii geli doonaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay log in your Sweet Wallet halka ay falaadhu ku aadan tahay aynu ku dhufan doonaa kadib markaynu halkaa ku dhufano wuxuu gudaha inoo geyn doonaa website-ka laga soo log gareeyay ama sweetcoin.com buu geyn doonaa Sweetcoin marka uu bartana keeno waxaynu ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay log in kadibna isaga automatic isku log gareyn doonaa Sweetcoin programming app your wallet buu oran doonaa kadib halkaas markay noo soo baxdo waxaan ku dhufan doonaa let's start halka ay ku qoran tahay let's start baan ku dhufan doonaa kadib next inta wad fahansantiin idinku waxa leedinka sheegi maayo kadib marka noo soo baxo Sweet Wallet-keennii sidatan noogu soo baxo way u jeedaan aniga waxay ugu jirtaa 330 Sweetcoin halkiina waxay sheegaysay 408 marka intaan la baxay halkaas kama jaraso laakiin abku ka jaraya halka available waxay ah 9.35 injina ayaa available ah sida halkaa soo jeedaan waa inta la ogol yahay in aan la baxo haddaan falaadho ku aadiyo waa inta la ogol yahay in aan la baxo wataa kadib waxaynu ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay detailed balance waxaynu eegi doonaa balintaan la baxnay iyo waxyaalaha muddooyinka u dambeeyay kadib hoos baynu wadi doonaa
hoos baynu wadi doonaa ilaa halkaynu kala baxnay. ujeedaan intaas waa intaan helay maantaan helay 8.3 laakiin waa tan halkan u soconaa. gorma la baxay 10 mir waxaa la baxay 8.47 wakaa minus 8.47 hadalka uga jeedaan taariikhdu maxay 10 kadib waxaynu toos baynu lacagtiin ula bixi doonaa. waxay ku leeyihiin 9.35 waxaynu ku dhufan doonaa bartay ku qoran tahay transfer halkay ku qoran tahay markaynu ku dhufano waxaynu soo bixi doonaa hab waa sendi iyo request. sendi oo xagga sare ah waxa weeyaan dir yani lacagta dirso, requestina waxa weeyaan soo dirso yani lacagta meesha lagugu soo dir laaba ku siinaya. kadib waxaynu ku dhufan doonaa sendi inagu maadaama lacag la baxano. kadib waxay noo soo bixi doontaa meel sidan u eg waxay ku leeyihiin halkaa ku qor adresska lagugu soo diri lahaa. kadib waxaynu doonaynaa adresska lagugu soo diri lahaa waxaynu tegaynaa exchangerkii KuCoin. kadib KuCoin marka aynu dhex galno waxaynu ku dhufan doonaa weyn ku jirnaa waledkii. kadib waynu kasoo bixi doonaa waxaan ku dhufanaa home halka hay falaadhu kaga dhanteed deposit baan ku dhufanaa deposit marka aynu ku dhufano waxaynu kasii galaynaa qaybta searchinta oo xagga sare inooga muuqata ayaa waxaynu ku qoraynaa sweet coin ayaynu ku qoraynaa. kadibna waata halkaa sare kasoo baxdayba sidaad uga jeedaan halkaa sare sweet economy waata halkaa sare kasoo baxday. kadib gudaha ayaynu usii geli doonaa sweet economy. kadib waxaynu ka dooran doonaa waxa laynoogu soo diray ma ethereum baad rabtaa mise near baan dooranaa maadaama ethereumku ay fiigeedu aad u badan yahay. marka adresska halka sare inooga muuqda ayaynu waxaynu ku dhufanaa copy adresska copy ayaynu ku dhufanaynaa. kadib marka aynu soo copy garayno waxaynu ku qori doonaa copy bataansa halka ay copy kaga muuqato. kadib markaan soo copy garayno waxaynu la iman doonaa waledkeeni sweet wallet. kadib markaan sweet wallet la imaano waxaan ku qornaa bartaa ku qoranta username or address aynu paste ku dhahaynaa. kadib markaan paste ku nidhaahno halkaas sare markaan paste ku nidhaahno searchinta aynu ku dhufana halkaas searchin ay ku qoran tahay. kadib marka aynu noo soo saaraynu sax yahay waxa aynu ku dhufanaa continue barta ay ku qoran tahay continue marka aynu ku dhufano wuxuu noo soo saari doonaa intee ayaad rabtaan in aad la baxdaan. wuxuu noo goliyaa 9.35 sanaalkii hore kusoo aragnay marka wuxuu leeyahay 9 wada baxsan mise qaybaad la baxsan. marka waxaynu ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay magas oo ah inta noogu jirta noo saar. wuxuu noogu diri doonaa adreskeenu halka kusoo dirnay. kadib waxaan ku dhufan doonaa continue wuxuuna fiigiisuna waa 0 fee ayuu naga qaadayaa. magas markaaynu ku dhufano waxaynu kusii dhufanaa halka ay ku qoran tahay continue oo ah halkaa hoose kaaga muuqanaysa. marka aynu ku dhufano wuxuu noo soo saari doonaa page sidana horta adreska totalka uu noo dirayaa waa 9.35 sad halkaas sare uga jeedaan. fiiga uu naga qaadayaana waa 0 wax fiiga ma qaadanayo. marka lacagtiina soo gaaraysa waa 9.35 wuxuuna noogu soo dirayaa adreska xagga sare ka muuqda. kadib waxaynu soo jiidi doonaa halkaa falaadhu ku tahay dhanka midig u jiidi doonaa. kadib waxaynu halkaasinu gaarsiin doonaa laynu calaamadiyey. kadib aduu wuxuu odhan doonaa sending sweet cabaar buu socon doonaa. kadibna waa lagu soo diri doonaa sweet coin taxdii oo waxaad ku dhex arki doontaa abka KuCoin sida kan uga jeedaanba cabaar buu socdaa. kadibna waxay noo soo saari doonaa page sidan u eg waad u jeedaan halkaa wuxuu noo soo diray 9.35 wuxuu noogu soo diray adresska aynu ku kono. kadib waxaan ku dhufan doonaa halkay ku qoran tahay close markaaynu ku dhufano waxay nagu soo celin doonaa sweet wallet dashboard halkaas sare sidaad uga jeedaan lacagtii maxaa lagu sameeyey waa laga jaray intii inoo available-ka 9.5 galka uu ka baxay lacagtiina waa la yareeyey 320 waa la yareeyey. kadibna waxaynu tegi doonaa abka KuCoin ama exchangerka KuCoin. kadib markaynu gudaha usoo galno waxaynu tegi doonaa qaybta waledkeenaynu tegi doonaa halka lacagtu nagu jirto. kadibna waxaa is refresh gareeyey adiga arkaya lacagta inta ku korodhay waxay noqotay 191 bay noqotay. dollarkina wuxuu noqday $4.10 waxaynu tegi doonaa historyga main account-ka historyga sweetkiisina tegi doonaa. halka maxaad ku aragtaa halkaas sare 9.35 halkaas sare waxaa sida kaaga muuqata taariikhduna waxay ahayd 12/14 bishii 10aad oo hadda ah. marka qaabkaas ayaad ula bixi doontaa. waxaynu geli doonaa sweet wallet-keenii halkaas oo isna ka tusi doonaa lacagtii xaqiijiin lala baxay iyo in kale. waxaynu ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay detail balance. kadib waad arkay halka waxaad uga jeedaa iyadna 9.35 ayaad la baxday marka ay saacadu ahayd 9:13 am. marka qaabka ayaad ula bixi doontaa.
waxaan rajeynayaa inuu muuqaalkan ku cajibiyey. Channelka subscribe dheh, like saar muuqaalka, gambaleelkana furo si uu muuqaal kasta kusoo gaaro.